barnaamijkan aan ugu magac darnay kulanka wadajirka dadweynaha Soomaaliyeed ee Minnesota waxa uu yahay kulan kii saddexaad oo sidan oo kale halkan la iskugu yimid marar fara badan hadaynu nahay qurba joog waxaan isku xamanaa in dhalinteenu aanay lahayn cid ay ku daysadaan ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo road model oo hadii aan afkeena ku soo dhaweeyo noqonayo qof la higsado oo bulshadu ay ku dayato waa in salaamay akhyaarta sharafta leh oo cashada caawa soo qayb gashay magacayga cirra u wada taqaanin inta taqaano inta kalena barasho wanaagsan marka aniga magacayga markii laga reebo caawa inaan iska hadlo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan laba waxyaalood in la sheer gareeyo intaan ugu wicin rag dhalinyaro ah oo award caawa inta laga siinayo labadaas arrin waxay tahay midda koobaad waa dadkii soo qabaqaabiyeen xafladdan quruxda badan oo coach Adam Ugaas oo saaxiibkii lagu leeyahay Sochey Blue iyo teamkiisa waxaan rabaa inaan dhaho aad iyo aad u mahadsantihiin marka waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo maadaama ay soo qabaqaabiyeen xafladdan aad u quruxda badan because waxaa jiro eventyo badan oo la qabto laakiin tan oo kale aad ay u qurux badan tahay oo lagu amaal marinayo dhalinyaro uu soo barbaariyay markii laga reebo akhlaaqdooda soo barbaariyay uu soo tababaray oo caaway na leeyahay kaale nagala qayb gala achievementigooda marka waxaan rabaa in kaga mahadcelinaa imaateen caaway aad iyo aad 100% ta kale waxaan rabaa inaan idin sheego office-ka hadda aniga aan ka socdo oo Senator Al Franken waxyaalaha aan qabano wax badan waaye immigration ama waa federal office waxa kamida marka in youth-ka ama state-ka dadka degan lagu dhiirageliyo waxa mataqaana ay waxa fiican ay achieve gareeyeen lagu dhiirageliyo laga garab istaago waxa kamid hadaan idin sheego last year markaan shaqada bilaabay waxaa jiray application la dhaho youth program oo DC lagu qabto 3 bilood gabar Soomaaliya baa kamid ahay application-ka dadka soo buuxiyay gabadhaas 300 oo arday camal ah soo buuxisay state-ka dhan application-keeda markii ugu horreeyay waxa ku qortay markii la dhahay maxaa rabtaa inaad noqotid waxay tiri waxaan rabaa inaan noqdo US senator the first sentence marka waxay ahayd 11 grade ku jirtay iskuulka gabadhii waa la qaatay office-keena kaxeeyay waxay ka soo shaqaysay 3 wiil wax ka soo shaqaynaysay senatorka macnaha meesha decision lagu gaaro warqaday u qaybinaysa biilasha la baasiyo ayadaa waxay ka ahayd qofka qaybinaya marka taas oo kale waxay u noqonaysaa aad iyo aad wax u dhiirageliya oo gabadhaas iskuulka inay dhamayso ku dhiirageliya inay noqoto dadka decision ka gaari doona wadanka inay noqoto waxay kale ku qortay essay-eeda aan ka xasuustaa inay tiri aniga kamay sahalin civil war iyo dhibaan soo maray waxay tiri waxaan ahay generation cusub wadankan meelaha uga socdana ma jirto aabay hooyaday Soomaaliya ka imaadeen laakiin aniga wadankan aan ku dhashay kuna caruur dhalaya senator inaan ka noqdaan rabaa marka taas waxay ahayd dhiirigelin aad u really aad noo dhiirigelisay ta kale waxay tahay hadda dhalinyaradan madda u wici doono u jeedin oo aadka u sharafta badan waxay tusaysaa inay wadankan qof ka xiga uusan jirin uniform-ka xiran yahaan waa dadka naftooda u horay inay difaacaan waana ogtihiin nabadda badankan waxaan ka nimid Soomaaliya ama meelo kale nabaddu waa shay qaali ah laakiin wadankan waxa lagu xushmay waxa kamida military-ga ama in taqaana uniform-kaas la xiranayo waa respect marka waxaan rabaa intaan ku dheeraan inaan u waco Qadar Xasan oo ah wiil Soomaaliya ku dhashay wadankan aabiisi hooyadiis ma sha Allah ay soo barbaariyeen oo hadda US Navy ku jira ninkaas dhalinyarada u jeedin caawa waxa la siinayaa award-ka oo la dhaho leadership on and off the field macnaha waxa waaye ninkan ragga waxa waaye maanta ma sha Allah waa ku mahadsantahay service-kaaga aad iyo aad 100% garabkiisana waxa taagan xaaji oo asagana last year award-ka qaatay ma sha Allah waxaan rajaynayaa inaad soo badatiin hadii Ilaahay idin anigana hadda inta waxaan ku siinayaa warqad
ama leerar u soo qoray senatarka inaan akhriyo mar raba waan hubaa inaa ingiliishka akhrin kartid maasha allah inaa aad akhrisanaysid laakiin inay kuu noqoto dhiirigelin aad marka aad og tahay in laga warqabo shaqada qabanaysid waan ku mahadsan tahay boqolkiiba boqolkii thank you Assalamu alaikum. As y'all heard, the brother Khadir Hassan al-Daha, and I want to start off by saying I gladly appreciate and feel honored to accept this award. I was actually quite surprised because I've been gone for a couple years now, but I want to thank everybody for coming out, and I want to share some memories I've had with Coach Adam Ugas in Minnesota Thunder Plus. I remember Coach had gathered a group of us about when we were 10, 11, 12, 13 years old. And we're all beyond excited for the most part. This was our first time playing with zero experience. We went up to Concordia University in St. Paul, where we played our first indoor soccer tournament. We played about 3 to 4 games. The scores were pretty insane. 19-3, 20-5, 15-0. Let's just say we got smacked. But every single one of us walked out with the same smile we had walked in with. But nonetheless, it was all fun for us. Crazy thing is, literally a year later, we entered another tournament where we went. After countless amounts of practices and sit-downs and talks, we entered another indoor soccer tournament where we went 13 wins and 0 losses and came out in first place. It was all because of the determination and motivation we all had, the countless hours our parents spent with us, Coach Adam Ugas had put into us. Soccer was just more than sports. It was more of an education and academic performance had played a big role. Because if you didn't maintain good grades, a positive attitude, we couldn't stay on the team. And the 2 individuals with the highest GPAs held the captain armbands. So you know we all looked forward to that. So not only was soccer that motivation on the field, but it also motivated all of us to be successful in school and in life. It literally brought all of us boys together as if we were a family. Because all of us valued soccer, valued having fun, and we all wanted to pursue the academics. It kept us occupied, disciplined, in which we all still use in life today. Once again, I want to thank Coach Farah for inviting me tonight. I wanted to thank everybody who partook in organizing this event. And if I can leave the youth and the audience with one advice, always be resilient. No matter how hard you fall, always get up and keep moving forward. And once again, I thank all you guys for coming out. Thank you. Qadar Hassan iyo Umar Haji hal igu sacbiye mar kale. Wiilasha yar waxyaabaha ay na tusinayaan ayaa waxay tahay haddii dad bulshada ka mid ah ay inta isxilqaamaan dhalinyarada ay waqti geliyaan in markaasi ay soo bixi karaan dhalinyaro fara badan oo wanaagsan oo dadka iyo dalkaba wax tara. Mar kale waxaan anoo fursadan ka faa'iideysanaya aan hambaliyay adinkana idinka codsanayna igu sacbisaan Adam Ugas oo dadka qaar u yaqaanaan Mr. J Blue oo isagu wiilasha macallin u ahaa hal igu sacbiyo. saaxiibkay J Blue magaciisa daan sheegay inaan kaftan yar oo caataa ka gaarsiiyo waaye
maanta tima jaraan isla joogin aniga saaxiibkay waa la isqurquraay ragga waa maalintii ugu horeysay oo aan gar inuu leeyahay aan ogaaday macalinka garkiisa wajigiisa waa isku ka ekaan jireen mugta marka waxaan xasuustay yaraan saaxiibanahay oo aan aad isu naqaanay maalin wuxuu ugu dhahay niyo bidaara ay gasho dhahay marka macalinka timihiisa iyo wajigiisa waxa dhan isku mid waay marka waxaan dhahnay bidaar haday u gashay maxaa uga walwalaysaa maba inay ku gashay kalmaba la fahmaaye inaad tin leedahay in kale isku mid waay marka saaxiibkay jay blue hal igu saxbiyo mar kale I hope inuu inta xanaaqin uusan bari is cadaynin waa tahay intaasaan ku dhaafayaa kaftankaas rag fara badan ay igu soo direen oo macalinka gaarsiiyay marka hoos ka turku iska jira kulli waa ogahay markii liiga dambeeyay microphone dad baa ay gali doonaan anigana waxaan u maleynayaa af Ingiriis gabayaan idinku daaliyay Soomaaliyeed waxa laga yaabaa qaarkiin as dhaadeen Soomaalidii kale af Soomaaliga inay ku gabaydo ma ilowday rag fara badan baa nala jooga caaw iyaguna halkan gabayo qurux badan inoogu haya waxaad ila soo dhaweysaan haddaba abwaan maxamed jaamac indhaweydba deelayda gabay waanigaan dirini indhaweydba deelayda gabay waanigaan dirini danigayga waatan ka jaray darajadiisii dhallinyaroy dadaalkaad wadaan baan ku tiirsadade dhallinyaroy dadaalkaad wadaan waa ku tiirsadayo dubkaayii xanuunsanahay iyo diirka ogadayey ha ka daalinine waa inaad dhabo dadaashaane inaweyd badeelayda gabay daayadoo dhigay danigayga waatan ka jaray darajadiisii duulaabta maansada anaan deli ka xoraynin haatanan duquubiyo markaan dalaqaha wiila deelka gabaga anigoo yarba daayeenii salaam afkaaga caana lagu qabay waliba kuwa baraf leh oo suusac iyo garoor iskugu jira hal igu sacbiyo